السلام عليكم صاحبيال سو دواده maantay waxaan rabaa inaan idin kala cadeeyo laba shay kala ah hunguri cadaha iyo hunguri madoobaha Soomaalidu waxay dhahaan halkaas hunguri cadaha ku qabanaya maxay ka wadaan hadaba waxay yihiin waa laba tubo oo isdaba taala waxa soo horeysa hunguri cadaha ama tubada qaadaha wada waxa ka dambeeyay tuba kale tubadaas oo ah mid ay marto cuntada oo Soomaalidu ay dhahaan hunguri madoobaha waxaan loo yaqaanaa esophagus labadaas tubo nuucso weyn ay ku dhigtirtaa waxa soo horeeyay tubada hawada meesha hawada ka gasho haday cunto qof ka gasho ama biyo ka galaan qofkaas uu dhimanaya laakiin Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu u sameeyay tahaar ama dabool yar oo daboolay kaasi oo marka qofku cuntada la qaayo ay daboolanto dad badan isku aragtaa marka cuntada cunayso hadii ay hadashid inaad ku saxato oo xanuun aad dareentid oo dhuuntii ayad in wax si kala ka noqdeen oo kale ma dareentaa taas macnaheedu waxa waaye tubada hawada waxa ku yaala sanduuq codka sidaas darteed looma baahno marka cuntada cunayso inaad ku hadasho adii kaleeto waxa halis u galaysa in qaybtii hawada ay isku daydo cuntada inay gasho marka taabashada ay afka hore ka taabato ayaa xanuun zaid ka dareemaysa hadii uu qofka cunto ama biyo u gudubtana qatarteeda ay leedahay okay waxaad intusayaa qaabka labadaas tubo kan waa ilmo yar wuxuu isticmaalayaa sa u jeedidba caano naas nugaya markuu naasku afka soo galo meesha caaniha maray hunguri cadi waa kana hunguri madoobiina waa midkaas gadaale oo hadda xiran maxaa dhacay marka fiiri hunguri cadaha seesan u galin meeshan hawada dabool ayaa laga saaraya okay wajid waxa meeshan fuulay dabool yar ayaa fuulaya kadibna caani korkaas ay marayaan kadibna waxay galayaan hunguri madoobiina waa qudratillah sidaas ayuu u shaqeeyaa hadaba labadaas